السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaantiin si kastood noo maqlaysaan iyo si kastoo aad meel kastoo aad naga dhegeysanaysaanba barnaamijkii xariif magaalo ayaa halkaan kugu soo gudbinayaa. Magaca waa Sayd Khaliif. Kanaalka subscribe dhaha, TikTok follow dhaha markaan soo dhigo waa arki kartaan insha Allah. Riwaayadaha ku jira iyo cashada ku jira Khaliif magaalo ayaan falanqeynaa. Waa kana markaana waa qof weyn aniga iima tihid riwaayadii qof weyn aniga iima tihid laan bubsiyo saa waqti idinkugu ilaaliyo meeshaas maahan riwaayadii istaaji waxyar intaa hagaajinaya xariif magaalo aabbaha iskaamka Soomaaliya ayaa ninkan aniga u bixiyay. Iskaamka waxaa laga haystaa double PhD si waqti idinkugu ilaaliyo waxyar iyo 30 baan ka dhigaa si idinkugu bogsiyo. ونيكو عروس واو عادي ما أهم عروس على طول يا بوكي وطا ربوك على دير فيا والله قفل بوطا وخطأ أيه أيه بسم الله عليك كان هيانا سهل قرصة قفت بيدي كتبين اوكي صحيح فير حريف كان ودي بيها يا فستان يا وريح رو فلنقيت الصومالي روس على الإيمانة ولا فلنقينا وهذا الضر على الرتاس باسمه محروق النو ودي على حريف مقالة حريف مقالة You could literally start your own business. حيسين بقى يقطع كشيء. It blows my mind. With Shopify, it's easier than عباس بنت wuxuu boo dhacay waxa rabaa hadda reerkeena inaan dhaqano gurigeena dib aan ugu laabto wixii horena iskiiloona يعني دي بقى شغل اوكي هذا كان معنا اديق فكرة ahaan taas kidaad ma ka imaadeen macna mise qof wax ku soo sheegay ma fikradayda halka waa fiican tahay laakiin waxa loo baahan yahay labada qof markay reer ay wada dhaqayaan guri ay isla joogaan waxyaabo badan in la xiriiriyo loo baahan yahay laakiin qof kale inuu soo dhaxgalo wax fiican ma aha shalay hal dalaaqa kula tagnay maanta waa soo ogaad qaladkaaga dib u soo laabatay oo ku soo dhameynaa laakiin shalay waxyaabaan isugu dhacay hadii dib u soo laabtaan ani adi dib isku arkayna wix dalaaq iyaalo toos u dhameystira afanta ma hadda maskaxdaada iyada okay tahay hadii aad ogolaatay okay waan ku soo dhameynaa okay هيك عروس وي ايش ضاونا يا هاي حسام مجري لكن لما له تاسي ساعتين انا لك ساعه مال السانق سولو كوان دمدي واسقاون عادي كوي هربوت xogaa ximadi waxba ku jiri jiray xabiib isqabooji waaw niga oo ka shidantaan yaa dadka noo soo hambaliyay aftaxa kamid ah ooki افتحي Soomaalkii mar taqaana rasuulna Steambe اوكي افتح تحسستي lacagtii 5 kun ahayd gurigan u qalbay ما شاء الله دوقه في عنها alaabtaas u jeedid jiifka iyo fadhigaas ku soo dhigay $5 scam ana walwalin 3 bil oo todobada ku jirno oo Soomaali aad joogno kiradiisna waa hormari laakiin mid jirto haye waxardii bidii mari waliya حبيبي هرت العكا كولولي هو قال على يا شاري ahayd taasa ka wadi عبد قرب جوج واحد برادر واحد عيالها ولا قرب جوج واحد ya balan qaadi waa ku dhisay dhahday sadahana alif كل يوم بس سامع لك اشياء وسنينه ودسا aan balanta ka qaaday waa si بس ناد يو يلا اسمع يجي لك سرباني qofeen iimatid انا ما حصلتها ايه اوكي حبيبي قصد يارنا hay hay halo abo waraay xaalada ka war waa fiican alxamdulillah wala haye bal ii warniyo alaabtii guriga taali iyo guriga jabigiisa ka war عادي لا alaabta iska okay waa qolka isaga xireen baan baranda iska saxda bishan korontada biyaha ka war
كورنتادي بيا وحرس كان كلي لي قرب جوي أنا waxaan ka rabay guriga macnaha dimaashida bintiyaa soo celiyay هذه موالن تاعي كلغا جاري شلي okay ana waxa u fahmay marka guriga ninkan si kubel gaar ugu sii jiray naagu ku guursaday ba wuxuu lacagtiina waa cunay waa ka qaatay waa qalabay amal uu ka dhigay saas u fahmay kolay waa is furteen marka is furaysiin marqaatiyaal joogeen anaa kamid aha marka isku laabanaysiin ama isku naqsanaysiin marqaatiyaashii shalay la rabaa shalay anaa joogay marka ku laabanaysiin aan joogo waay sharci cusub ninka guriga waa laga saari rabaa buu yiri waa qalabay shanku baa ku qalabay يدينا ولا يقول لي العقل روح راسي maxaa ka qaldan macnaha ina ay tashatid ee ahayd qalada sameysay macnaha xaaskii ku laabana adima kala tashana wax ma lagu sheegi karmiyaa warwarkaas waalidey inta iska dhaaftay waxa sameynay qolkaaga hore aad digneed ku laabo gurigaasna si nabad ee iga bax ayay baatayn حبيبي محل قلت محل فكرة سا تحسيا لي سوشي يا انت ايدي هي تأسيد معنا ما اروس انا هاي العقل سيدر لها العكس اللي ولا شنو حبيبي هرت وحل العقل وهاك فكرة كبرين عني وحل العقل انا حلناي بس ادو فكرة سيجي لعني اوكي هاي ما سنتها كده سيجا العقل قلب سيجي لنا ayay dooliga lacag loo ka qaaday rabaa gurigan lacagtiina wuu cunay waxa idin leeyahay waa ninka waa scam caadi ah gurigan soo garaacay ama qolada guriga lahay tahay ayaa wiilka deera maya biyaha waay biyo fiirra waa daud gelay yalla kameriga مش عم يغاك بيها تفضل اوكي اصدرينا حبيبي ما كانت يا ما قصص على بيها صدن دورك صورتين لما صوت ندور على بحنا هاي فرقة ايدي بقى فيريها waxa ku dhiibay dadka aan ameerka saarno waay صدن guriga laba ku jirnaa $10 على صوت العيش $10 يريد خطير وتشعشع ودك اسكاب بدنا انا لله وانا اليه راجعون meel ku dabaalan ma shaaba ma isticmaalna وحي ويدعي سوما waxa la xiriir soo qornaayeen darada korontada lixdan مع دولار الازدواج انا بالعكس كو قيمه كما دهين سكام هاي Why are you still not Ah. making money from trading? واي ما I تحيزين feel تيجوا that بدون it تعال will really work. Stay with me for فيدي the next ماستر 45 كلاس seconds. انا فورس Will you كاك work دوي to اوجي trade يا or حان start يدا يا اخي يدا اخي يدا ايي نينكي ناكتي اسكو نقضي waa yimid ayaba taagan gurigooday rawaantay ورواي واساس عداي يا وبهنا ذين yaa u baahnaa xataa qofka guriga lahaa baa anaga بقولنا كري انا دقنو كريدي سبح سدح بلاد انا اللي وقباي waxaan u baahnaydana yaa u shubtay ninkaagan yaaba حبيبي yaana kaa kireen waraay maxaa qaldan gabadhaan yaa waay dimaashida waa xaaskii waa walaalkii waa kan soo gala سكام waa la qabtay waxyaabaha qaar waxaa la qarqarin karin jiro maxaa waxaan arkaya teeda kale mid yar ku sheegaa ani waa qiyaantay maalinka aan wadanka imaanay kabahaaga xataa siiga ibusay lahaayeen waa ku jafjaftay waa ku qurxiyay nin niman ka soo saaray laakiin ina saa ii qiyaanaysid ma ogeyn guri aad leedahay iga kireysatay walaalka magaalada jooga imaada barin بليز ام بليز waxaan ka codsanaa lacagta iga ka baxday waa $7500 lacagteeda ii soo celi ani adiga nagu kala wad qaa'im baa tahay nagu kala wad ani adiga ayo ku xalnaa buugii soo qab buugii abu arintan ma gashido waxa arinta waxay ka turjumaysaa dumarkan qurbaha inta ka yimaada maaragtay ayagoo 3 beelood ama 2 beelood camal fasaxa wata raba inay wadanka joogaan nin isaga dhacaya dalaq ninaas iska baarin wuxuu yahay garanaynin walaalihiis garanaynin cidiisa garanaynin iska gelaya yani guur bay rabtaa dalaq bayn iska leedahay hada naagtaas oo jeedin ninkan meesha aqoon wuxuu yahay meesha aqoon guriga uu kariyo uu leeyahay meesha aqoon meel lacag lagu bixiyo kama warhayso lacag baa laga qaaday qaybtuna ayaa dibadda ka imaan hadda waayadan dambe xoolaha rag waxa ba jiraba de ay inta dibadda loogu yimaado ayagu xoolo la baxo oo aan gabadha wax weydiin laakiin sida aqlabka wax weeyaan rag ay guursanayaan rag waxay samaahan waa rag ayagu wax la baxayaan waliba hadhowna ay kaxay ugu sii darayaan inay kaxeeyaan oo marka hore dantiisa gaaran laga yaabo inuu ka tago haduu
inta badan inuu ka tagay u badan tahay because guurka waa guur waxa way danaysi lagu galay guurka danaysiga lagu galna hadii dantii la gaaro in lagu kala tagay u badan hada waa kana ka xaliya adi alaabteydii iyo gurigeyga yaab adiga hor isaga gashay teeda kale maana dhagax kale ma ku rabtaa buug ma ku sameyn kartaa dhagax kale ma ugu cunta buugadan lacag kale ka qaadana bedelaysa kun makaay waa lacagtaas bas kaam Soomaaliya waa aan fariisan aawad hadal wax fariis shil ma jiraan lacag $7,500 iga ka baxday lacagteeda u baahan bismillah horta niyaha bilaasha u baxday ani maxkamadda arrinteeda tagaysaa xuleyga waa u baahanahay ودابا عشرك وساس عيد الشيء وحوي اسكفوبي ميدا كلا قبلها قربها كيما waxa la walaalay guur faxa hadaartid guur fiican hadaartid nin sharaf la hadaartid ina guursatid waxa muhiim ah oo laga maarmaan ah qofka aad guursanaysid in aad isaga fiirisid riwaayad waxay tilmaamaysaa hada iska gashid meel waa si sahal ah uga baxay okay marka iska hubi wuxuu yahay qofka guursanaysid ma shaqeystaa waa wax ka rabaa everything ina weydiisid waxa laga rabaa insha Allah marka iska caday riwaayadu intaas noogu yahay programka qaybtan xariif magaalo abaaskan Soomaaliya salaamaya kala subscribe daha oo kala kiciyo ilaa 3 qof saas subscribe gareysay meesha ka qaadanayo ilaa 20,000 waxay gaarsiiyeen